hoteelka Amana Guest House ee magaalada Boorama waxaa maanta ka dhacday munaasabad si weyn loo soo abaabulay oo lagu soo bandhigay 19 xildhibaan oo ururka ummadda oo kamid ah urur siyaasadeedka Soomaaliland ugu sharaxan xilka golaha deegaanka ee degmada Boorama waxaana munaasabadan ka soo qayb galay gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa Dr. Qaasim Sheekh Ibrahim Tubaac waxaana xusid mudan in musharaxiintan xilka golaha deegaanka ee degmada Boorama ururka ummadda u matali doona ay ku jireen haween dhowr ah waxaa madashan ka hadlay qaar kamid ah musharaxiintan u sharaxan xilka xildhibaanimo ee golaha deegaanka ee degmada Boorama ay kamid yihiin haween ay kamid tahay Idil Ali Bashiir waxayna xustay dareenkeeda maanta waxaa sidoo kale xusid mudnaa in musharaxiintan xildhibaanimo ee maanta la soo sharaxay ay kamid ahayeen saxaafiyiin dhowr ah oo ka howlgala goboladan Awdal iyo Salal sidoo kale qaar kamid ah salaadiinta goboladan Awdal iyo Salal oo iyaguna madashan ka hadlay gaar ahaan Suldaan Ibraahim Yuusuf Dacar ayaa waxa uu xusay in beesha Gabooyo oo suldaan ugu yahay goboladan Awdal iyo Salal ay saamigii ay ka lahayd urur siyaasadeedka Soomaaliland ay ka heshay ururkan ummadda isla markaana waxa uu taageero u jeediyay madaxda sare ee ururkan ummadda gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedkan ummadda Professor Qaasim Sheekh Ibrahim Tubaac oo madashan hadal ka jeediyay ayaa waxa uu balan qaaday in urur siyaasadeedkiisan ummadda hadii uu ku guuleysto doorashooyinka ku soo foolay Soomaaliland uu wax weyn ka bedeli doono Soomaaliland إذا وقعت الله حديثا بقولتين هاي بدو حوان كلام هل كان مسعون عودنا الجسود gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo gabagabadii madashan hadal ka jeediyay ayaa waxa uu balan qaaday arimo dhowr ah waxaana hadaladiisa kamid ahaa saddex shay oo meesha ka muuqda oo ururka ummaddu u halgamay oo xabsi u galay oo calajuuleen u maray oo doodeer u maray saddexdaba waxaa hirgeliyay madaxweynaha saddexda waxaan idin sheegayaa ururadii siyaasadeed ee albaabku kaga xiraa shakhsi kastoo himilo leh inuu himiladiisa doonto madaxweynaha maanta ayaa albaabka ka furay soomaaliyama أنا كنا دحاسي بابا مرة وحصاري دليل وحشري يقول راس صدم سمكير إن دليل وكذا يقول كلام كلام si kastaba arintu haatay urur siyaasadeedkan ummaddu waxa uu ku xusan yahay inuu yahay ururka ay ugu badan yihiin hablaha u sharaxan xilka musharaxnimo ee golaha deegaanka ee Boorama waxaana ururkan maanta ka dhex muuqday dhowr haween ah oo kamid ah musharaxiinta xilka xildhibaanimo ee golaha deegaanka Abdi Fatah Ahmed Hadu Wanaag News magaalada Boorama